kiisi u dambeysay ayuu neefsaday wuuna geeriyooday. Haweeneydii iyo labada caruur ayaa maalmo dhan ku jireen baroordiiq. Kadib ayay xaaskii booqatay qabriga si ay ag fadhiisatay ayadoo leh ereyadaanay: Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. asxaabta wayna insalaamay meel kasta dunida dacaladeeda ka joogtaan. waxayna tahay wanaagsan, maalin wanaagsan, maqrib wanaagsan, habeen wanaagsan, wax kastoo wanaagsan. maasha Allah, hawada ayaa kusoo laabanay anakoo nabad qaba iyo idinkoo nabad qabtaan. alxamdulillaah, ilaah ayaa mahad u sugnaatay. maasha Allah, asxaabtayda aan jeclahay, maanta qiso ayaa noo wadaa. qisooyinkeena qiso kamid ayaa noo wadaa. intaa qisada aan noo bilaabin, marka ugu horeyso channelka haddaa ku cusub tahay, subscribe noo saar, like noo saar, asxaabtaadana la wadaag. commentiga dhiirigelintana waa xaggiina. maasha Allah, muuqaalkaana waxaan jeclahay inuu dad fara badan u gaaro. like waa noo muhiim, like saaid ayaa noogu baahanahay. dhacdhac igu sii wax dhiga kuuma qaadanayso. subscribe-kana noo saara, wax yar ayaa nooga dhiman meesha u soconay insha Allah, ka badanna waa rajaynayaa. marka aan u gudagala qisadeeni, wuxuu aad iyo aad u jeclaayay xaaskiisa, waxayna u haysay 2 caruur ah. wax kastuu awoodo xaaskiisa wuu siini jiray, balse ayadana wax kasta maqsuud kuma ahayn. kastuu ninkeeda uusan taajir ahayn, wax kasta uu heli karo wuu la wadaagi jiray. u soo iibiyay maro mise dhar, waxay ku dhihi jirtay waxaanay wax laga tago waayo, wax liito oo mar hore laga soo tagi waayo ayay ku dhihi jirtay ninkeedii. ninka iyadoo saasta uu iskii samri jiray, wuu u dhoola cadayni jiray, wuxuuna ku dhihi jiray mar aan maanta ahayn ayaan taajir noqonaa insha Allah. waxaana ku iibini doonaa dhammaan waxyaalaha qaaliga aad adiga jeceshahay. haweeneydii marna telefoonka ma wici jirin ilaa ay mar ay wax ka codsanayso mooyaan. uusan u fulinaynin codsigeeda, wax kaliya ay sameyni jirtay muran. ay muranto maalmo dhan, marna ay dagaalanto ayay sameyni jirtay haddaa codsigeeda loo taxgelini waayo. galab asagoo shaqadiisa kasoo rawaaxay ayuu u soo iibiyay 1 kiilo hilib ah, isagoo faraxsan oo isla maanta xaaskaada way farxi doontaa. hilib ayaa u iibisay oo saas ah ayuu guriga imaaday. hilibkan cawa mise waxaa la dhihi jiray maalintaasay xaaskaada iyo caruurtaada si fiican ha ugu dhargaan. markii uu guriga gaaray, ninkii haweeneydii ayaa ku tiri in hilibkuu tusiyay 1 kiilo. markaas ayay ku dhahday, nin baad sheeganaysaa, 1 kiilo hilib ayaa guriga la imaanaysaa. markaas ayay ku tiri, hilibku waa keentee, maxaa yeelo oo kaloo lagu karinaa, masaliid baa taal. markii ay qaaday hilibkii way tuurtay, wadada ayay ku tuurtay. ninkii aad buu u carooday, marna wuu isdejiyay, marna isma tusinin inuu aad iyo aad u xanaaqay aan u carooday. jaceylkan hoos uma dhigin. isdhiye si niyad ahaan jaceylka aad xaaskaada u qabtid iyo caruurtaada waxba hoos ha u dhigin. maalin ayuu xanuun u ka dareemay cagta bidixda ah. waxaa ka soo baxay cagta bidixda bur weyn ayaa ka soo baxday. 3 bilood uu aad u weynaatay buridii, xanuunkana uu ku sii batay, ayuu hosbitaal u kacay. waxaana laga helay kansar, kansarka ah. wuxuuna ahaa sabool aan awoodin daryeel caafimaad aad u wanaagsan. inkastuu aad u xanuunsanaa, wuxuuna isku dayay kastuu u awoodo inuu reerkiisa u quudiyo. sana kadib xaaladiisa way isbedeshay. isbitaalkii ayaa la geeyay, ayaa qalin lagu sameeyay oo laga jaray. nasiib darro, waxay ahayd xilli dambe, fayraska jirkiisa dhan ayuu saameeyay, jirkiisa dhan ayuu ku dhex qaadmay. inkastuu xanuunku markii uu qabto isbitaal u aadin oo nin sabool u ahaa, xanuunkii jirkiisa dhan ayuu ku faafay. lugtii ayaa qalin lagu sameeyay. subxaan Allah, qisadan waa qiso aad iyo aad u xanuun badan oo ka cibro qaadasho mudan. ilaaha naga dhigo kuwa xooga ku samro. insha Allah waxaan rajaynayaa qaybta xigta in kii kale kusoo dhamaystiri doono oo dhamaadka
codkeeda aad ayuu niin taawan doonaa insha Allah waxaan rajeynayaa qayb xigta inaan baatitu aan kasoo sameeyay haddii ilaahay ma yidhihin aad iyo aad ayaan ugu heli doontaan waxaan rajeynayaa idinkana inaynin qanacso asxaabtiina la wadaagso asxaab fara badan ay u aragtay insha Allah waana ka heli doontaan mid kalena like-kana waa noo muhiim like-kana hanaga iloobina markaa muuqaalka bilaabay ayaan kasoo bilaabay in aad subscribe iyo like iyo comment-iga wax kasta aan naga dhisi doontaan insha Allah waana filayaa insha Allah waan rajeynayaa cusub inay taxgelin doontaan sidaan inaa ka hesheen rajeynayaa dhinaca comment-iga noogu soo qor insha Allah wixii fikrad ah tagay sidaas iyo fi amaanillah kulan dambe xiiso leh